السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصada waa qaybteeda labaad la socod wanaagsan insha allah. waxay tiri maamadii waxay tiri kuuma sheegi lahayn gabadhii waxay tiri kuuma sheegi lahayn hooyo haddaad i dhibsatay musqusha aan kusoo daahaye haddaan kuu sheegi bay dhahday. maamadiina way ka dhegaysatay. waxay tiri markaan ku imaanaye cunug yar baan kusoo tagay oo 40 kale weli lagala bixin umal baan ahay bay tiri hadda yani naasihii baan soo lisaa musqusha waxaan usoo daahaye naasahaan lisaa bay dhahday. marka saasaa musqusha ugu daahaa marka yani danyarow baan ahay oo qof yani waxba aan haysanin baan ahay saasaan usoo shaqo tagay fursadaan saasaan usoo raadiyay bay dhahday. shaqadaan baa iisoo sheegay. marka maamadii way ka naxday ilmihii waxay tiri waxaan ugu soo tegay bay tiri ilmihii aabahood baan ugu soo tegay cunug yaraa iyo ilmihii kuwa kalaan haystayba aabihii baa ahayay dhahday. marka maamadii weyneed way naxday waxay tiri wiilasheeda iskugu yeertay wiilal fiican oo danaynaya ilaahay siiyey. marka wiilashii iskugu yeertay waxay tiri gabadhaan waxaan rabaa in la anbabixiyo reerkeeda loo diro anigan shaqaale kale la ii raadiyay dhahday. aniga intaan noolaana dhaqaatiirta ii sheegtay wax yar waaye haddii waxaan rabaa inaan gabadhaan anbabixino oo waxay u baahan tahay dhan loo gabo. marka gabadhii waxaa lahay wax kastood u baahan tahay waxaad odigaaga u geyn lahayd waxaa ciyaalka u geyn lahayd waxaad dariska u geyn lahayd waxaa dadkaada qaraabada aad tihiin u geyn lahayd ehelkaaga waxaa u geyn lahayd waxaa rabtid teleefoono noocaa rabtid shoobin noocaa rabtid wax kasta sheegaa la dhahay. marka dee qofkaas oo danta yar waxay rabtay sheegatay wixii dhan waa loo soo gadaa la dhahay. waa loo soo gaday waa loo soo diyaari lacagtay ku ambabixi lahayd diyaaraddii wixii dhan diyaarad baa looga dhigay. marka sidii baa lagu ambabixiyey waxaa la dhahay 2 sano. maamadii waxay tiri 2 sano cunugaaga soo nuugso markaas kadib aad noo soo noqon doontaa bay dhahday. 2 sano waxaa ku noolaan lahayd biilkaaga aad ku noolaan lahaydno bil kasta xawlaadaad ka helaysaa baa la dhahay oo adiga kuu dhow. marka maamo sidii baa lagu ambabixiyey sidii bay gabadhii gurigeeda ku aaday. marka saas markay ku baxday haddii qisadan waa tii 3aad bay noqon doontaa yani ma sii wadmaysa qayb 3aad baan geli doonaa insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi